xilli dhawaan laga dhagax dhigay duleedka koonfureed ee degmada Beled Xaawo garoon diyaaradeed ayaa waxaa soo baxayo xabashooyin ku aadan dhismaha iyo dhagax dhigga garoonkaasi diyaaradeed. qaar ka mid ah waxgaradka degmada Beled Xaawo oo sheegay in dhulkaasi uu yahay hanti dad shacab ay leeyihiin, dhagax dhiggiisana aan laga talagelin waxna laga weydiinin dadkii iska lahaa dhulkaasi, taasina ay tahay dhac iyo boob aysan ka filaynin dowladooda federaalka Soomaaliya siday hadalka u dhigeen. أنا وحنا محمد شيخ حسن علمي بعلى رحي وحنا وضياشة بولحة ودقن بانكمل هاي dadka wax garadka wadankaana ah baan ka mid ahay. waxaa jirto maalin dhaweyto asbuucii hore xabasho weyn ayaa soo joodinay. waxaan ka soo joodinay dhul dad fara badan oo anigaan ka mid ahay ay lahaayeen oo kala duwan, dad dibad jiro, dad gudaha joogo, dad magaalada degan, dad aad u tiro badan oo nooc walba isugu jiro, kuwa reer baadiye ah, kuwa masaakiin ah oo waxa weeyo kala duwan ay leeyihiin oo guriye ka dhisan yihiin oo magaalada dhexdeeda ah. yaa nimankii halka noogu yimid 30 sano baan dawlad sugaynay oo dawlad la'aan ahay, kolba qolana qabsanaysa. maanta waxaan la yiri dawlad baa idin timid, nabca idin timid, nabad iyo nolol baa idin timid, sharaf baa idin soo hooyatay. aad baa dadkii shacabka ay magaalada deganaa u farxay. waxaa soo daba martay masaakiinta dhulkoodii oo magaalada dhexdeeda oo xuduudka qarkiisa ah oo aeroboor iska daayay حتى واحد دقيقة كانوا شعب هنا لا أرك أيروبور ولا يقانا أيروبور وكي وينا ومير والبوك معها مقالة 8 كيلومتر 6 كيلومتر 20 كيلومتر وتري مقالة أيروبور باللو برونها يا لليه عصب هو اللو حاقها يا لليه لحدا شربان هاي ولا جاي ما أنا عرق ما أنا مقال ما أنا شرته وحنقول نعي وحلا يابان لكرام عيدن كان سوين ومقعيها في عنلها oo ku faraxsanayn wuxuu noo noqday in noogu la hanjabo hanti malihidin tuugaadkii qabta tuugada in la yiraahdo hadda rag baa naga xirxiran way xirxiran yihiin seed u hadasheen baa loo xiray. waxaan ma hadli kartaan biyaa ma dhihi kartaan soo qabta saas aan ugu dhacday. waa dacwoonina marka maanta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka cid kastoo dawladdan wax ka go'an annagu odayaal baan nahay dhulkaan leenahay. waxaan rabnaa in nagala qabto dacwana oo idin dacwoonayna in naga qabta waa idin ku celinayna dad baa naga xirxiran oo inama xoog nooga xirteen oo si u hadashay nooga xiran waa idin dacwoonayna in naga qabta. waxaan naga xirxiran niman annagana hadda waa nala raadinayaa waxaa la leeyahay say u hadleen. waxaan codsanaynaa arrintaas in wax nagala qabto naloo qabto oo si degdeg ah aan warkeeda u helo. dadkii dhulka lahaa waxba lama weydiin, waxba lagalama tashan, nidaam dawladeed noloma imaanin. waan degnay annagaa degnay dad gaar ah leh weeye danaha gaarka ah dad kale. meeshaan aeroboor ma aha, annagu aeroboor haddii la rabo diyaar baan u nahay qarash inaan ku bixinno, inaan ka qayb galno, wax kasta inaan ku bixinno. laakiin in annaga oo dhan ugu la habsado tuulo dhan oo balad dhan aan la qabsado ayadoo dana laga leeyahay ma aqbalayno mana aqbali doono. waxaan ka codsanaynaa dacwadanada inaad qaadaan waxna ka qabataan. assalaamu calaykum. waxaa la yiraahdaa aniga nuur jimcaale faarax nuur koran baan ku magac dheerahay. waxaan meeshaan ugu nimid istakaana dacwad baan waxaan ka dacwoonaynaa dulmi baan ka dacwoonaynaa. waxaan ka dacwoonaynaa dhul degaan oo aanu deganahay oo degaankayagii ah oo lagu habsaday oo guryaha nagii waa la burburinayaa la yiri oo wax laga qabtay ayaan ka dacwoonaynaa. waxaan u dacwoonaynaana wixii codaha ama dad kale meel dhulku kala jiray iyo cadadkiisa ilaa 1000 qof baa dhulkaas leh oo degaan ah wax dalka jooga iyo wax ka maqanba. waan dacwoonaynaa waxaan u dacwoonaynaa madaxweynaha
محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزراء حسن علي خيري وزير كأرمها جودها waxaan ku codsanaynaa arintaas inay soo farageliyaan dawladda dadkeeda ma dhacdo ma burburiso waxbay u qabataa way kaalmaysaa danyarteeda gacantay qabataa waxbay siisaa waxbay u dhistaa wax kama duriso u dhisan waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka arintaas inay soo farageliso oo wax ka qabato dad baa naga xiran annaga laftiga iyaguna ma baxsanayno hadlay ma baxsanayno waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dacwadayada inay wax ka qabato ay loo dhagan gulaato waa dawladayadii waa dadkiinii waa bulshadii idin dooran doontaan inaad wax ka qabataan arintayada oo aad u dhagan gulaataan codsiga iyo cabaadkayaga naftayada iyo maalkayagana aad badbaadisaan anigoo Cabdullaahi Ibraahim Salaad waxaa weeyo dawladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leh oo noo timid oo wanaag oo soo dhaweynay waxaan ku soo dhaweynaynaa dalka iyo dadkaba waa soo dhaweynaynaa waxaan ka codsanaynaa dhulka waxaan ku gadanay ari iyo loo aan soo gadnay yaan ku soo gadanay waxaa weeye hadda kolkii la joogo oon aad dhisataan iyo aad dhex degtaan iyo horyaal ku dhisataan aan leenahay yaa la yiri meesha waa leen kala wareegay meesha aad leedahay adinka yaqaan boos kalena magaalada kumaana lahayn haddaana boos aan magaalada aan ku lahayn dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay ayada dawlad in ay ficil qeyr noo samayso dalkii dhulka lahaa ay nala xisaabtanto oo tiraahdo dhulkii aad lahaydeen meeshaan uu idin maray waxaana idinku siiyay saana dheeynay waana ama dhul baan siiyay ama lacagtiina baa la idin siin hayaa ama wax walbaba waa la idin siin inay dawladana tiraahdo yaan ka codsanaynaa ama meeshaanada ay noo dayso meel maanta deegaan boosaska ayada ma ogi magaalada boosas kalena kuma lahayn kiran ku jir kala ka carbaana inaad horiyaashii anada ibaha iskaga dhax dhisanaa rabnay hadii maanta hadii nagala wareeg dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay ama hantidaanada noo celiso ama meeshaanada noo dayso waa magacaygu waa Cali Cabdullaahi Xuseen waxaa cabasho barnaamijkan waa cabasho weeye maalin weeytana waa ka cabanay hadda oo xaaladii ay lagu adkaatayna waa cabashadii baan wadnaa sidaad u jeedaanba waxaan nahay dad deegaan ah oo dalka degan oo 30 sano burburka ay ka horba deganaa baana waxaan nahay dad sugayay nabadgelyo iyo horumar iyo mas'uuliyad dad sugayaan yaan ahayn haddana dawladana ka sugayna Soomaaliyeed oo madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu yahay ra'iisul wasaaraha Ali Xasan Khayre uu yahay waxaan ka cabanaynaa dhul anagu aan deegaan u leenahay oo aan wax naga degan yihiin ama aan deganahaybo oo aan hantidanada ku mulkinay oo aan lacag kala baxnay oo guriga ka dhisanay haddana dhismihiisu nagu socdaana laga qaato waana lagu dul habsada cid naga qancisay qaabka asaga ah ama aan kala hadalno ama wax noo sheegtana ma aan arag haddaan u tagnay qoladii maamulka aan u tagnayna waxna qanciya nooma ay sheegin waxaan codsanaynaa number 1 dhulka asaga ah oo aan ku tiirey tacabeelnay oo gabdhaha yaanyada ay ku gateen oo ku araysta aray ku gateen oo ku canjeer ay ku gateen oo deegaan noo ah oo aan degayno waxaan ka codsanaynaa inaan hantidanada iyo maalkanaga aan sidaa lagu banaysanin oo nalaga burburinin nalana qaadanin maxaa yeelay waxa weeye waa noloshanadii weeye ma diidanin horumarka ma diidanin aeroboort balad xaw laga dhiso waa soo dhaweynaynaa contribution ka qayb qaadanaynaa xoolahana ku bixinaynaa laakiin in lagu madoobeeyay marrabo fiira gaar meesha aeroboort annagu hadda fiirinay nooma cuntabin ma aha inaan hanti aan maxaa ku leeyahay kala qeylnay ma aha waa meel 500 mitir jirta xuduudda sukuuradkan inaan ka fikirna xaq u leenahay waxaan codsanaynaa marka oo ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta dawladda waxaan ka codsanaynaa xaaladaas in waxaan ku dhahay aan nalagu tilaabsan nala ka daayo waxaan ka codsanaynaa dadka xirxiran dadka dhulka waa la xirxira noo daaya lagu xirxira dhagax bay dhigteen bay ku xiran yihiin waxaan ka codsanaynaa in xadgudubka in laga joojiyo
annaga hadda nala taagan aan codsanaynaa hawshaas in sida ayada ah baan ka codsanaynaa waxaan sugaynaa qabuulkiina sugaynaa jawaabtiina waa sugaynaa wabillahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacaygu waxaa la yidhaahaa nabadoon maxamed aadan gohaad ku nool degmada beled xaawo waxaan saakay ka hadlayaa aan ka tiiraanyaysanahay dhulka dawladda ay garoonka ka dhigtay boolo xaawo oo aan muddo badan annagana dawladda sugaynay oo aan lahayn idin soo gaarsiiyey dawladda oo wixii hore jabhad u naqaanay oo nala ku bilaabay annaga dhulka in nala ka qaatay dawladdan taageeraynay oo dadka iyo dunyada iyo maalka iyo muruqa iyo maskaxda ku bixinaynay saakay dhulkii yareeyay oo ku lahay degmada beled xaawo inay naga qaato oo garoon aan ka dhisanayna ay tiraa marraa waaxid waa ka xuma jabhaddii hore oon ka dayrinayo u ekaatay marka hawshaas iyada inay qaabkaas iyada u dhacdo howl jabhadeedkay u ekaatay dawladda waxaan ka codsanayaa dhulkaas aan dadweynaha farada badan ku nahay oon masaakiinta ku nahay oon dawladda ku sugayno oo dawladda hadday timid dhisme iyo aaqibo kale aan qalbiga ku haynin saakay ka kaca waa idinka qaatay dawladda meel hana geysa dhulka hadda ay naga qaadaan dawladda meel hana geysa oo hana siisa dhul ama hanaga siisa hantidan ku lahayn oo dhulka hanaga gadata ama dhulka dhul hanooga bedesho ama dawladda waa dawladdan sugaynay oon madaxa iyo maskaxda iyo maankaba ku haynay oon muruqa iyo maalka la garab taaganahay waxaan dhihi lahay dhulkaas isaga yaa nala ka qaadan dawladda dhacan tirsanaynaa dhagax baa lagu dejiyey hanala ka deeya dhagaxa hanala qiimo geliya waa dawladayni waa sugayni hanagala deeya dhagaxa iyo muruq maalka hanagala deeya oo yaa nala maqbuulin magacaygu waxaa la yidhahdaa nabadoon maxamed salaad cabdille ku nool degmada beled xaawo odayaasha dhaqanka oo beled xaawo ka mid ah annagu waxaan nahay dadkii deegaanka u dhashay dadkuna haddii dawladdii burburtay nin walba wuxuu yidhi shilinka aad haysato iyo meeshaad maaragtahay wax ku ammaansan karto wax ku ammaanso ninkii shilin haystay dhul buu gashtay ninkii meel haddii qabsan karayna meeshii buu qabsaday dhul qabsaday uma badan dhulku dhul hanti lagala baxay buu u badan yahay waxaan codsanaynaa dhulkaas masaakiin baale agoon baale dad kasta oo aan maanta ayna wax ka go-in baa iskale anagu garoonka waa soo dhaweynaynaa dawladda soomaaliya waa soo dhaweynaynaa waxaanse u baahanahay dhulkaas dad baale dhul furan kuma jira dhulkaas waxaan rabnaa hantidii naga gashay in nala siiyo haddii aan loola dhaafaynin oo cabirka uu nagu soo ekaaday hantida nooga maqan in nala siiyo oo masaakiinta aan laga oohinin oo wixii lasoo maray aan dadka la xasuusinin saaka ninkii yidhi hantidii dibaan haystaa ninkii yidhi oo meeshii tagay waa la xiray dadkii wuu xirxiran yahay waa ka xunnahay in maanta nin hantidiisii lagala macaamiloon karo in maanta la xiro waa ka xun aad baan ugu xunnahay dawladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirada waxaan ka codsanaynaa arrintaas in nagala daayo inaan dadkaas la boobin in dadka aan laga oohinin dadka aan odayaasha u ahayn waa galangalonhayaan oohintoodii baa cad agoon iyo nooc walbay leeyihiin dadkaas waxaan ka codsanaynaa dawladda soomaaliya in ama hantidii ay lahaayeen oo ka gashay meesha la siiyo ama dhulkoodii haddii haatan dhul badan baa arrinta ka yaalay dhulka la aado oo waddan kale airboortka laga dhigo haddii aan airboortka meel kale laga dhigaynin dadkaas in la qanciyo oo dadkaas nagala aamusiyo intaasaan codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan fiicsan carays dhulkaas maata iyo agoon bay leedahay in naloo daayo oo hadda alla kuu diidin ama haddii kalena hadda alla naloo daaya cabashada waxgaradkani ayaa imaanaysa xilli dhowaan laga dhagax dhigay dhulkaasi garoon diyaaradeed mar dhowna la filaya in dhismihiisa la bilaabo waxaana looga fadhiyaa dowladda federaalk soomaaliya jawaabta ay ka bixisa cabashadan iyo sida ay u qanciso milkiilayaasha dhulkaasi iska lahaa maxamed sheekh maxamed lafagir warbaahinta ista beled xaawo.